heerkulku wuxuu marayaa 36 degrees Celsius. magaalada Berbera ayaa ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn dhulka Soomaalida. Daaroole waa xaafadii ugu horeysay ee la dego magaalada Berbera muddo laga joogo ku dhawaad 2 qarni. dadkii ugu horeeyay ee degay xaafadan waxaa ka mid ahaa Hindi, Arab iyo waliba Yahuud. halka waxaa ka muuqda raadkii iyo aasaartii ay ka tageen dadkaas. sidoo kale waxaynu tijaabin cuntada goobtan loogu jecel yahay. dadka dalxiisayaasha ah ay cunaan ay jecel yihiin. xaafadda Moscow ayaa qadiimi ah. waxaa la dhisay 1968kii. waxaa deganaan jiray ciidamadii Ruushka xilligii dawladdii Soomaaliya. suuqa waxa weeyaan suuqa lagu iibiyo kalluunka. guryaha soo jeedada hortooda waxa lagu iibinayaa kalluun la shiilayo. marka waxaan energy u haynaa maanta oo aad ugu xiiso qabnaa inaan cunno kalluun fresh ah magaalada Berbera. hortaasaa lagu shiilayaa. marka ninkii buuni baa ku jaran kalluunka. marka waa jimce kalluunka baa ayaan cuni doonaa insha Allah. kalluunka yara diyaariyey iyo isagoo abuuni magaca saliidonisa waxa weeyaan kalluunkii waa soo degay waxa la geeyay soodhadii oo la soo qaaday waa kalluun fresh ah badiya barkaani inta laga soo saaray kalluuntaas waa kuwa shiilaya rismalkii toba inta siilasa intaas toona oo ay toba ka siilasa marka gawaaridu ay ka yimaadaan hargeysa iyo baa la orda moogtay iyo baa la orda halkan ka siiyay halkan hablaha soo hagaajiya waxa ay hablaha ku soo dhibaatoodeen ay ku asin macaaniyaan ilaha kalluunkii laakiin xaqiiqiya hablaha soo xidha xaga waxay ku qaybti karaan kuwa mees kada toba kana imka ku diray naalo markaa sheego xasan ka ismi uka asxaabta kalluunkii Berbera fresh ah wadarkiiseen imka la shiilay baashan yar waxa laga siiyay 10,000 kalluun badan oo ku jira kalluunka magaciisa Cabdilaahi kalluunka magaciisa waa shirwe ya shirwe وكا ودي ويا الفاميلية لا فاميلية ايه ولي إن يرو نعيد اللي ولا يرو ولا شرودي عاد بس عاد معك شرود كاسو كا أنت وحى عن كل سنة تمام كون $1 إيو دوري سنتي دوري سنتي مركا ودي كنا اللي معك الله كيف يجلس على وصو يا مركا بسم الله بسم الله عبد الرحمن ضنور عبد الرحمن هذا حويان كلون عادي أد معي تونا لموذا لكن كور حاجة ده كيسة تونا معها تونا ويجي لكن مو معايا سمع معايا وده كان جالس تري يو لا كارا يا كده كارا يا أيه كلون كده دمني يا ماشي ده كلون كده تونا حويان لفجيل بيد دري 100% 100% عرفت هلا أصحابتها waxaan joognaa Berbera magaalada Berbera xaafadii Daaroole suuqyada Soomaaliya inshallah suuqyada waxa weeyaan suuqyadii lagu iibinayay kalluunka maantana waxa weeyaan maalin jimco ah maalmaha jimcaha kalluunka aad iyo aad loo cunaa suuq waa jaam muuji kalluunka jimcaha waxa loo doortay maalmaha kale loo cuni waayay jimcaha aad iyo aad aad bay kalluunka jecel xasan waxa weeyaan dukaamada kalluunka kalluun yar yar aan u arag hargeysa tuunan baa inta badan lagu arkaa halkan ka indhis badan baa yaala baa la magac kale ay ku sheegeen saliid xikaayo saliid lacag maxay taas maxay saliida wada maxay tartaa wada tartaa oo yaa gastriya hay hada farbadan hay oo nooc asal isma weeyay isma qadiimiya iyo 700 كنت سأقول والله ما تقول يا ريس ما إنجليز ما نسي هندي ما نسي وأنا هندي ما نسي وهي ماشي أيكا أساس متى ما قبل عمتي مقالة بربرة
marka imika waxaan u soconnaa bal meel halkan ah oo lagu dabaasho waa dhan magaalada dhexdeeda dadku inta badan ma talaalo meydka laakiin waxaa jirta luuqyo bartanoo dadka reer magaalka ama ciyaalka xaafadda ay ku dabaashaan meel halkan oo ciyaalka xaafadda ku dabaashaan ayaa jirta waa magacaaga muxuu ah cabdilaahi baana wada cabdilaahi waxa weeyaan dadka inta badan ku dabaasha goobtan shalay baa nimid dabayl badan baa dhacaysa in lama qabo kala mooji maanta joogaa xaafadda loo yaqaano daaroole xaafadda daaroole loo yaqaano waxa weeyaan xaafad qadiimiya dhismayaal qadiimiya marka dhismayaashan iga dambeeya iyo guryahan iga dambeeya ajanabi baa deganaan jiray iyo bangaalida ayaa deganaan jiray berigii hore oo ku shaqaysan jiray goobahan iminka waxaa jira goobo xidhmay ka dhismahan oo kale uu burburay masaajidkan aynu marayno waxaa la yidhahaa hadda masaajidkan aynu marayno waxaa la yidhahaa masaajidka hindiga xaafadda daaroole waxa weeyaan masaajid caana inta badan masaajidada berbera maadaama ay kuleyl tahay waxay leeyihiin AC ama qaboojiye halkaa waa ka muuqda asxaabta waxaan joognaa mid ka mid ah masaajidada ugu qadiimsan Somaliland gaar ahaan magaalada Berbera masaajidka waxa weeyaan masjid jaamaca magaalada Berbera qaybta waxa weeyaan qaybtii lagu weysaysanayay xagga weysooyinkii sidoo kale meesha waxa weeyaan barxadii weyneed xagga dambe marka masaajidkan 100 sano wax ka badan ayuu dhisan yahay marka halkan minaaradii baa xaggan ah xagga waxa ku qoran 1364 waxaad ka dareemaysaa masaajidkan dhismihiisa in aad joogto waddan ama magaalo taariikhi ah magaalo qadiimi ah sidoo kale halkan waxaa ku yaala suuliyaasha baa ku yaala kawaan baad xidhanaysaa falilaahi alxamd waa salaadii casar ka bacdi shayga la yaab kale waxa weeyaan suuliga masaajidka waa bartan sababta furan halkaas waxa weeyaan barbaadiyo kale biyaha qaboojinaysaa waa sagbad ama sibid waa suuliyaashii halkana waxa weeyaan minaaradii masaajidka imika waxaynu taaganahay wajahada ama qiblada ama xagga hore ee masaajidka muuqaalka masaajidku sidan buu eegyahay qaybta hore ee masaajidka waxaa ku qoran taariikhdii la aasaasay ee la dhisay masaajidkan sida idin muuqata haween 1352 marka haween 1352 waa haween 1300 iyo labiyo kontonkii asxaabta waxaan joognaa magaalada Berbera magaaladu waxa weeyaan magaalo aad iyo aad u qurux badan dhir badan leh wadooyin qurux badan leh waxa weeyaan magaalo dalxiis
meelkasta waa wado. meelaha ama goobaha wadooyinka u dhow badankoodu waxay leeyihiin sidoo kale iyagana waxaa laga beeray beer aad iyo aad u tiro badan ayaa laga beeray siiba geedka dhamasta la yidhaaho. maanta kuleelku wuxuu marayay 36 digrii buu marayay, marka dabeyl baa dhacaysa, marka dadku waxay leeyihiin maanta kale waa qabow. magaaladii Berbera taaladan waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan magaalada Berbera. taaladan waxaa loo saaray maadaama ay meesha ku taalo magaalada Berbera, maadaama ay ku taalo magaalada Berbera dekedii ugu weyneyd Somaliland. taalo waxaa looga dhigay markabka ama laashkaas. channelka subscribe-ta aan gaarsiino 50,000 oo subscribe insha Allah. muuqaalkana aan gaarsiino 10,000 oo like. iminka waxaan soo gaarnay xaafadda loo yaqaano Moscow, waa mid ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan magaalada Berbera. xaafadan waxaa deganaan jiray ruushkii baa deganaan jiray xilligii Soomaaliya dowladii Siyaad Barre. ciidamada raashinka bartan deganaa oo leedo ku qaadan jiray. waxa weeyaan si waxay u dhisantahay cajiiba oo qurux badan. aan isa daawano. marka guryaha waxa weeyaan guryo qadiimi ah, marka qaabka ay u dhisan yihiin way ka duwan yihiin qaabkan iminka loo dhiso. guriga waxaad ka arkaysaa in loogu talagalay xilliyada kuleylka inuu iska caabiyo, isagoo haddana sagbad ah ayaa waxaa ka muuqda faamuleer baleera ama shabag ama nimanka dhismaha ku takhasusay waa garanaya. marka salaankan baan kori doonaa, bal in waxaan filayaa muddo hore in la koro inay ugu dambeysay. inama joogtaan filayaa gurigaas wuu ku leeyahay. marka waxa weeyaan saad arkaysaan waa guryo qadiimi ah. waxaan filayaa in la dhisay 1960 ka badnaynba. marka guryuhu way badan yihiin, qaar kale halkaa ku yaala ilaa dhinacaashe guryo tiro badan. marka guryaha waan dhex mari doonaa ilaa xagga shisheyn soo daawan doonaa. ila socda. halkanna waxaa ka muuqda bir baa ka muuqata. waxaan filayaa in korontada ama leerka laga kantaroori jiray, wallahu aclam. waa qadiimi guryahan, ilaa imika waa la degan yahay. xaafadahan waxaa la yidhaahaa Moscow. ruush baa deganaan jiray xilligii midoogii Sovieti. marka waxyaabo badan buu ka qabtay ruushka waddanka. sidaan ku maqlay wadada Berbera iyo Hargeysa ilaa Wajaale ilaa Burco inuu dhisay isagii China ayaan maqlay. marka guryo aad u badan yihiin, waana la yara casriyeeyaan filayaa sida rinjiga oo kale. laakiin dhismuhu waa dhismihii la dhisay 1960 baan filayaa weliba. marka waa qadiimi. guryaha xitaa la iskuma dhadhejin, la iskuma dhadhaweyn, waa kala durugsan yihiin. gurigan oo sikadaas iyo sikadan iyo sikadan kale iyo sikadan nimankaan taaganahayba space weyn baa u dhexeeya. sidoo kale magaaladan Berbera waxay leedahay wadooyin samaysan, meel kasta waxa ku yaala laami qurux badan. hataa xaafadaha aan jaamka badan suuqa aan lahayn waxa ku yaala laami. xagayga hore xagayga dambe magaaladan haddaad gaari ku dhex wadatid, gaarigaagaasi waxaan filayaa muddo dheer in uuna kaa xumaanayn. iminka waxa weeyaan xilli galab ah, ilaa 6dii maqribnimo ay saacaddu u dhowdahay. waxaan dareemayaa huur iyo kulayl, anigoo cadceed arkayn baan haddana kulayl dareemaya. hala xagaan ciyaal yar baa kubad ku ciyaaraya. waddada ku dhex ciyaarsaane waddada ku dhex ciyaaranahay oo gaadhi waan jiri karaa.
يا si guud marka loo eego magaalada Berbera ayaa ah mid qurux badan indhaha dalxiisayaashana soo jiidanaysa markaynu ka eegno dhanka wadooyinka iyo qurxinta farshaxanka magaalada gudaheega sidoo kale nadaafadda magaalada Berbera ayaa aad iyo aad u sareysa sidoo kale daaroole waxaa jirta goob badda saaran oo dadka ama dalxiisayaasha ama dadka degan magaalada Berbera ay tagaan galabtii iyo aroortiiba muuqaalka halka hore ama dhinaca hore oo ku soo aragnay inkastoo codku dabeel lahaa bartan waxa ku soo xidha doomaha kalluumaysatada imika waxa idin muuqanaya doomo badda ku dhex xidhan dhinaca idin muuqatana waxa weeyaan dhinaca laga soo dejiyo kalluunka loo kala gudbiyo magaalooyinka Burco Berbera oo ayaa barta laga soo dejiyaa sidoo kale dadku ay ku nastaan oo kaamka kalluunkii la saarayo gaarigaas sidoo kale dadku ay ku nastaan galabtii iyagoo daawanaya cadceed dhaca iyo sidoo kale helaya leyr qabow oo ka dhacaysa goobtan waliba gaar ahaan xaafadda Daaroole dabeel aad u badan baa ka dhacaysa waa waxay dadku u degeen ay u doorteen in ay bartan degaan 100 sano ka hor iyagoo saadaaliyay meesha ugu fiican ee ugu hawada wanaagsan ayaa meeshan noqonaysa anaguna waanaga tijaabinay dareenka dadka reer Berbera ay ku qaataan meeshan magaalada waxa ka jira huur iyo kuleyl qofku markuu halkan u soo baxo badda xeeligeeda oo aan ka fogeyn magaalada dhexdeeda ayaa wuxuu helayaa jawi iyo leed iyo deganaansho masha Allah tabarakallah channelka waxaad gaarsiisaan 50,000 oo subscribers like-ta waxaad gaarsiisaan 10,000 u sii shargareeyay familigiina iyo asxaabtiina idinkoo jawigan qurux badan nala daawanaya ma adraaka magaalada Berbera waa magaalo taariikhiya dalxiiska iyo jawi bedelashada kuwaan oo ku wanaagsan magacayga waa wax la yiraahdo Mukhtaar Cabdi Xuseen ma sha Allah waa dhalinyarada Soomaaliland ka shaqeysa badda cas wala wax weeye shabaagihii aan ku soo qaban jiray kalluunka qashashka saari jiray ma sha Allah iyo saaxiibadaha yaryar iyo dooyaha waxa lagu soo jilaabaa kalluunka oo dhigaya halka sare waxa ku jirta baashaari ku dhigay akar way kan waxna xarig baa dhexmarsan tan waa shabagii xagga hoose dhagax baa laga xiray ma sha Allah wadana hoos waxa uu yiraahdaa 9 mitir sida waxa weeye boqoliyaan ayagoo badan oo isku xidhay baa dhignaa oo la sameeyay badda dusha ma sha Allah kalluun badan ma markaa hooyaan lagu soo qaban karaa adu waa yom la kiyom qeyr marna waa ku helaa marna adu mar wax soo saar ku yiriyo dabeena macaan way jirtaa maru baniina way jirtaa adu doona habeen quraan ku heli karo kun kiila ama kuleesha ma wada jireen ma sha Allah marka qaarna way yareysaa xilliga maada iyo dabeelaha ay kala abada ma casaa ama roobabkii daadad kala dhagaxaad u xidhay tan muxuu tarayaa babaalka dhagaxu wuxuu tarayaa miisaan xagga hoose oo quusinay biyo quusinay la taro kuwa dhakada sare ayuu miisaan leeyahay way sabeynayaan way sabeynayaan dhagaxda hoos buu jiiday dadna 9 mitir wixii ku soo qaad ay isku laabays marka MC yeeranaysa gelaysa ayada adigu toosadka taweyna saasi isugu rogaysa isugu rogaysa taweyna oo si aan isha dhaxmari karay abada yeeranaysa lagu tala galay gelaysa inta gelaysa MC ku qaadataa in marka qaar kood hadii doonto la hayn baan ku maqnaanaa marba 7 days ku maqnaanaa 10 cishaan ku maqnaanaa toosadka waxa weeye inta badan 7 cisho 7 cisho markaad ku maqnaanaysiin marka raashin baad baahantiin biyo baahantiin كورن بيه يا راشنك واو بيه هي راشنك وقادنا انت لو سارين فوستين بيه بنو صارن شدالكي بنو صارن راشنكي بنو صارن وحشي بنو صارن اما بيبي قاس وحان وحكو استعمالين marka waa iska dhex saxan karaa wala saxan karaa wixii buu saarin biyo dusha biyo ka soo galmayaan ma ka soo galayaan saas ma muujida u raacis qaarna guriga leeyin buu caadi oo sax يعني ما هذا جاي. ما سجل يعني يضل دام. دكتور. ما سجل يعني. ما سجل.